Soomaaliya oo lagu sheegay dal fashilmay kana soo kabanaysa dagaaladii sokeeye waxaa lagu ammaanaa dadaalkooda ku aadan noocyada ganacsiga. Maalqabeennada ganacsatada ah ayaa waxay u kala qaybsamaan dhowr dabaq. Waxaa jira kuwo dakhligoodu hooseeyo iyo kuwo dakhligoodu sareeyo oo aasaasay shirkado ganacsi oo kala duwan. Ganacsatadan waxaa sanadkiiba soo gala dakhli xad dhaaf ah oo marka xisaab ahaan la eego lacagtooda noqonaysa ilaa 8 tiro, taasi oo lagu asteeyo maalqabeennada haysta malaayiinta dollar. Magacyada maalqabeennada ka soo jeeda Soomaaliya kama dhex sharqamaan maalqabeennada Afrika. Waxaa laga yaabaa inaadan hadda ku hor maqlin magacyadooda. Majalada Forbes ee inta badan diiradda saarta arrimaha dhaqaalaha isla markaana galaangal ku leh xogaha qarsoon ee taajiriinta milyaneerada ah multi-millionaires ayaa waxa uu soo bandhigay 5 qof ee ka soo jeeda Soomaaliya ee maalqabeennada ah. Cabdirashiid Ducaali waa madaxa fulinta shirkadda xawaalada ee Dahabshiil oo ah shirkad caalami ah oo in ka badan 24,000 oo xafiis ku leh 126 dal, waxaana u shaqeysaa in ka badan 2,000 oo qof. Aabihiis ayaa la sheegay inuu aabihiis aasaasay shirkadda ganacsiga Dahabshiil isagoo dhidibada u dhigay bilowgii sanadkii 1970. Cabdirashiid Ducaali oo 40 jir ah wuxuu haystaa dhalashada UK waxayna xarunta dhexe ee shirkadda Dahabshiil ku taala magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ee Midoobay. Wargeyska Forbes waxa uu qoray dakhliga shirkadda Dahabshiil ee sanadkii hore la soo dhaafay $1 bilyan. Shirkadda Dahabshiil Group waxay kaloo leeyihiin bangiyo ganacsi oo ka howlgala gudaha Soomaaliya. Cabdirashiid Ducaali wuxuu leeyahay 95% saamiga guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Waxa kale uu hanti ku leeyahay magaalooyinka London, Dubai iyo Hargeysa. Cabdirasaaq Isaaq Iido waa aasaasaha iyo saamileyda shirkadda isgaarsiinta ee National Telecom oo ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ugu waaweyn gudaha Soomaaliya. Ganacsadahan waxa uu degan yahay magaalada Dubai wuxuuna shirkadda National aasaasay sanadkii 1997. Shirkaddan ayaa bixiya adeegga telefoonada moobilyada internetka waxayna leedahay in ka badan 700,000 oo macaamiil u adeega National oo u ah adeegyada National. Maxamed Abshir Cabdi waxa uu hantida uu haysto ka helay ganacsiga cuntada badda seafood. Waxa uu leeyahay shirkadda kalluumeysiga ee Xaafuun Fishing Company oo aasaasay sanadkii 1992. waxa uu ku leeyahay dhoofinta, qaybinta iyo iibinta wax soo saarka cuntada badda sida argoosatada iyo hilibka qararsan ee libaaxa badda Red Shark Meat. Shirkadda waxaa sanadkii soo gala dakhli ka badan $10 bilyan. Ismaaciil Axmed waa aasaasaha iyo madaxa guud ee fulinta shirkadda xawaalada World Remit oo xaruntooda dhexe ku taalo magaalada London. World Remit waxay lacagaha xawaalada ku bixisaa online ahaan waxayna macaamiisha u sahashay sidii lacag ugu diri lahaayeen saaxiibadooda iyo qoysaskooda ku nool dal kale. Sanadkii 2015 hantida shirkadda World Remit waxa uu ka sare maray $100 bilyan. Aamina Mooge Xirsi waalidkeed waxay ahaayeen socoto ka soo tahriibay Soomaaliya waxayna degeen degmada Bungoma ee galbeedka dalka Kenya. Aamina waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Bungoma. Markii ay kortay waxayna ka shaqayn jirtay baqaar ay hooyadii ku lahayd gudaha dalka Uganda. Waxay kale oo leedahay warshad soo saarta sokorta lagu magacaabo Aid Sokor Factory. waxay kaloo $120 milyan ku horumarinaysaa warshada sonkor oo ku taala gobolka waqooyi ee dalka Uganda. intaas ayuu nagu eegyahay barnaamijkeenii ee ahaa 5 qofood ee ugu qanisan Soomaaliya. waa ku mahadsantihiin la socodkiina iyo daawashadiina.